Bismillahirrahmanirrahiim. Waxaan dhowr jeer la kulmay dhalinyaro lahaan jirtay balwad qaadka ah oo mar walba ay cunaan bilaabaya inay ku xanuunsadaan ilaa ay gaaraan qaarkood in isbitaal la dhigo. Intaan ka xasuusto dhalinyaradaas mid ka mid ah markuu qaadka cuno wuxuu isku arki jiray wadna garaac xad dhaaf ah iyo naqaska uu ku dhago. Mid kalena bogga ayaa looga dhigi jiray kadibna matag aan kala joogsi lahayn ayuu bilaabi jiray. Sidaas ay tahayna cunnada kale wax dhib ah kuma dareemaynin. Mid kalena markuu qaadka cuno cabsi iyo walwal xad dhaaf ah ayaa ku soo degi jirtay. Waxaan kaloo arkay dhalinyaro jaadka ka go'ay oo sabab uga dhigay inay bilaabeen inuu jaadka u soo uro markay afka geliyaanba qaarkoodna ay ku tilmaameen sidii saxaradii oo kale. Ogow astaamahan ay dhalinyaradan tilmaamayaan waa wax ay isku arkeen muddo iyagoo jaadka cunayay ee ma ahan wax ay la kowsadeen. Sidoo kale wax walbo qaadka ka haray markay cunaan waxba kuma dareemaan. Baaritaan walbo la marsiiyane wax cudur ah oo fasiri kara arrintan ma jirin. Qaar ayaa gaas ahaan iyo qabsin ahaan isu soo baaray. Qaar kalena dhakhtar wadna ayay la kulmeen iyagoo isaga shaksan wadna qabad. Dhalinyaradaas qaarkood sidaas ayay uga go'een balwadda jaadka. Dib damban xanuun iskuguma arag. Waraysi iyo dabagal dheeraad ah oo aan ku sameeyay dhacdooyinkan. Fasiraadda kaliya ee ii soo baxday waa in waalidiintood ay dhici karto inay ka habaareen balwaddaas si ay uga go'aan. Marka dhageystow adiga maxay kula tahay arrintan? Horeyna ma ula kulantay arrimo noocan ah? Waana mahadsantahay.